gabadha maskiinta ah sida maanta loo galay oo nafteedu loo dhaafiyay waxa ka sii murugo badan toddobada caruurta oo hooyo iyo aabba u nooleen oo maantay oo kule hooyaday markay gubanaysay oo dabka lagu shidaayay annagana waa baqnay sariirtaan isku dhumnay sariirtaan isku kuusnay alla ilmaha ma dhageysateen sariirtaan isku kuusnay inuu annagana nagu daraan ka baqaynaa wallaahi billahi tallahi wadnaho dhan maanta saas ii jirayaan kur wallah wariyaa geeri ka xun weligay ma aragan kur geeri ka xun weligay ma aragan kur geeri ka xun warniyo gaaladan yaa iga qabta Soomaalidu say ii jeceshaa Soomaalida ima jecla maanta oo gaala ay soo dalbanayso soo qabo anigana ma yaqaanaan Soomaaliya wiilka sheerka hala dhaafinina leega hala dhaafinina wallaahi oo billahi oo tallahi aan kuri waxa iga daran gabadhaas ilaahay janna firdawsa hageey janna wayba galaysaa gacan ka xaq daran iyo dab qof lagu gubay wallaahi oo billahi ilmihi waxay yiraahdeen hooyo markaan dabkeedii hooyo maqalnad iyo dabkii iyo holicii oo hooyo gubanaysa nagu soo oraday oo guriga ku ceshaday لا إله إلا الله محمد رسول الله وردتك ورابا ما ينقذين وردتك ورابا ما ينقذين وردتك بحل ما ينقذين وردتك بحل ما ينقذين وردتك بحل ما ينقذين ورقبر مسكين وصوماليات أو ولا شاء أو إن عذابتها أو اسكو أفتهين أو اسكو نيكتهين محاك القبيسة محاك الدويدان أيضا لمن يساه مركو إلهي أقرأ محاك أديك الدنبي عذابتها اسمه حسكي صاريسا محاك كوغي maxaa nafteeda naftaan macaan ilaaha ku si ilaahana ka qaadanay wallahi oo billahi tallaah murugada ilmahaas ay ku nooliyeen ayaga daran iyo saskay ka qaadeen ilmo dalaqa oo cunugu ugu weyn aan 15 sano gaarin oo hooyadu holcaysa arkay oo hooyadu la gubay arkay say ku noolaanayaan ilmahaas bal caruurta say ku noolaanayaan bal caruurta sidee ku noolaanayaan bal dadka noocaas bal ninka noocaas sameeyay dad baa qabiil ku taageeri doona dad baa qabiil ku taageeri doono dhihi doona ninkaas reer hebel aha laandheero aha yaan la taabanin baalka lacag la bixinaya magdhag baa la bixinaya diya la bixinaya baq dad dhihi doona dad baa saas dhihi doona arxan laawaha noocaas sameeyay ilmahaas ka dhigay ilmahaas indhihu ka riday caruurta wariyaa hooyada waxay ilmaha u ahayd aabba iyo hooyo u ahayd aabba iyo hooyo ay ilmaha u ahayd madaas ilmaha waa aragtay iftiinkooda quruxdooda aabba iyo hooyo ilma aan lahayn maanta xilligan lagu jiro Soomaaliya u maqan ilmihi hadii la faro xumeeyo ilmihi hadii wax lagu sameeyo ilmihi hadii si xun loo galo ilma ay qofay u sheegtaan male hooyo u sheegtaan male aabbay u sheegtaan male ilaaha baa inagu dhaarshay soo xumo ma ilma hooyadoodii aabbahoodba dhinteen hadii maanta dib soo gaaro meel ay aadaan maanta male war murugada noocaasa war caasimada noocaas Soomaaliya noocaas lagu dhax sameeynayo wadankaas u hagaagaya wadanka noocaas sidoo u hagaagaya wadanka noocaas sidee dadka jooga dad wanaagsan u noqonayaan sidoo Ilaahay raxmad iyo janno iyo wanaag noo siinaya haddaan dunuubta noocaas galeen hooyo Soomaaliyeed waa isku buuxda waa hooyo isku buuxda uur leh maama isku buuxda uur leh oo 7 caruur dhashay oo xaamilo ku ah oo cunugeeda caloosha ku jira oo Soomaaliyeed war gaal iyo muslim ba Ilaahay kuma dhihin dil gaalka waxa lagu yiraahdaa maalkaada iyo naftaada haduu u socdaa iska celi kartaa lagu yiraahdaa gaalka laakiin fiiri qofka gaalka lagu banay inaad disho haduu naftaada iyo maalkaada u socon ma dili karto bal Ilaahay baan kugu dhaarshay ninka Soomaaliyeed oo maanta noocaas sameeyay dadka noocaas oo kale intii Soomaali ku dhex jiraan horumar xagan ka sameeynayna xagee ka horumarayna xagee wax wanaagsan ka helaynaa sidee Ilaahay noogu gargaaraya sidee Ilaahay maarta janno aan u galeynaa sidee Ilaahay caafimaadkeena uu taam noqonaya sidee Ilaahay irsaaqad xalaal noo siinaya sidee Ilaahay cimri dheer noo siinaya heerka noocaas haddaan marayno gabar hooyo isku buuxda oo calooshii ilmo ugu jiraan oo ilmo agoon hooyo aabbo u ahayd in qof uu qabay oo naftii dhaafiyo naftii u dhaafsi Ilaahay iimaanka ka qaade indhaha Allah ka rida indhahu ka rida cidda ilmahaas dalaqaa iga daran hooyadu holcaysa arkay maamadii hooyo waa gubtay la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ilaahay qaatumada noo toosi ilaahay adduunyadan cadaabtan soo dadkan cadaabta la marsiinayo ilma dalaqo hooyadu gubanaysa arkay oo waxba ka dhihi karin oo awood lahayn bal ninka maanta hooyada iyo aabaha ku horgubaya inaad dhimatida ku dhaanta hadhow waxa la leeyahay muqdisho waxa la leeyahay maxaa maalin walba daadadku noo qaadaan maalin walba daadadka maxay noo qaadaan maalin walba maxaan qax ugu jirnaa
maalin walba silac maxaa ugu jirnaa gabar kuu dhaxday uur kuu leh ilma toddoba caruuro agoona wadatay ilmihii aad dhaafsiisid ayadiina hooyii aabbay u ahayd cimri la isma wada gaaraaye hooyii aabbay u ahayd hooyi iyo waxay Soomaaliya bis ula adahay waxaan Soomaaliya bis ula ana ilaa 33 sano waa uqubadan sameynayna uqubada dumarka Soomaaliya loo geysanayo waa dulunka meesha ugu weyn culumaa la laayay dumarkii mid la kufsado mid ilmo looga tago mid la gubo mid la dilo aan marayna maanta dumarka Soomaaliya tacadiga aan u geysano ayaan bis u heli la'ana aan u hagaagi la'ana culumma ka hadlaysa ma jirto wax gabadhii Soomaaliya la xoogaya ilmihii hadii looga dhalo waa looga tagaya nafteedii maanta xalaal laga dhigtay oo la gubooya waa la gubooya waa ka maxay gabdhaha Soomaaliya gaalada u guursanayaan leeyahay gabadha Soomaaliya ninka ajnabiga markay raacdo sharciga kala celinayo wadan sharci leh ku guursanaysa sharciga kala celinayo say gabadhan ayada sonkorteeda iska leh meesha rabtay geesan kartaa waagi hore waxaan dhigi jiray gabdhaha Soomaaliya nimanka cadaanka iyo aadin ajnabiga iyo isu guursanin laakiin caawa laga bilaabo gabar kasto Soomaaliya maqlaysa nin allaala ninka nafteeda ku aaminaysa guurso walaalay hadduu cadaan yahay iyo hadduu madow yahay oo islaam yahay guurso walaalay macaanay carabta guurso Bakistaanka guurso Hindiga guurso Sri Lanka guurso waxaa guursataa Mexicaanka madaxa ballaaran guurso balaaga Amerikaanka guurso cadaanka guurso meesha artin aada dada uur leedihiin oo ilmo u dhashay ilmo caloosha ugu sideen haday inuu gubayaan ka war haday saan inuu gubayaan ka waran shaashada iyo garaac dumarka Soomaaliyeed waa dhiban yihiin dumarka Soomaaliyeed waa dhiban yihiin hooyooyinkeen way walaalaheen way waa gayaankeen waa dhiigeeni waa maartay gabar Soomaali abbo markay ku tira qalbiga ku qaboobay gabar Soomaaliyeed markay ka soo horbaxday ku tira abbo qalbada ku qaboobaysa ninka gabar Soomaaliyeed inuu cadow ka dhiganayo yaa dhalay kuwa xunka Maroko u socda oo caloolaha waaweyn waa kuwa noocaas oo kala nimanka Maroko maalin walba ka sheekeynaya kuwa wax gubaya lamid yihiin nimankan Maroko ka sheekeynaya maalin walba kula Maroko la aadaya kuwa maanta gabdhaha gubaya gogoonaya lamid yihiin haduu ku ninka Maroko aadaya Hindiya naagu raasanaya naag cadaan ba halka u raadinaya naag Turkiya xagga u raadina waa nimanka naagaha Soomaaliya gabdhaha Soomaaliya guba ilaahayna kuwaasna ha inaga qabto war waxyaalahan oo kala ma fiicno war dunuubtaan la galaayo war dhiig islaam aad gashay ka cafinayo war dhiig islaam aad gashay yaa ka cafinayo maxaa yaa ka cafinayo dhiig islaam aad gashay yaa ka cafinayo adduunka ilaahay laba ma cafiyo gabarnimo ah oo waligeed la guursan oo farji ah oo bigra ah oo waligeed la taaban hadaad xaraan ku jabisay ilaahay xaraan ku bigra jabisay ilaahay kaama cafinayo gabar aan waligeed la guursan oo waligeed sinaysan hadaad xaraan ku bigra jabisid ilaahay ma ka cafinayo soo cimreyso wax kasta sameey midda labaad ilaahay kaama cafinayo dhiig muslim aa gashay cimro kasta soo cimreysatid sadaqa kasta la baxdid wax walba sameeysid ilaahay ma ka cafinayo waa gabar xaraan ku bigra jabiso oo farjigeeda xalaal lagu guursan xaraan ku bigra jabiso iyo dhiig islaam aa gashay labadaas ilaahay kaama cafinayo labadaas marka soo cimreysanaysa albaabka hore lagu dhigayaa albaabka hore lagu dhigaa marka soo laabato qoorta lagu gelinaya qoorta ayaa lagu soo gelinaya marka soo laabatid qoorta lagu soo galan waliga ilaahay ma ka cafinayo gabar xaraan ku bigra jabiso oo waliga aan guursan oo gabar ah oo farji ah iyo dhiig islaama gashay labaas ilaahay kaama cafinayo ama duul ama cirka gal ama sadaqa bixi ama galgalo ama yaa tooba yaa rabbi dheh wax kasta sameey labadaas ilaahay ma ka cafinayo maskaxda gasho waxaan sheegayaa marka qof islaam ah hadaa tahay gabadha Soomaaliyeed hadaa isku xumaatiin dhaqashadeeda leedahay dhiigeeda ma lihid gabadha Soomaaliyeed hadaa isku xumaatiin dhaqashadeeda leedahay ma dhiigeeda ma lihid guri hooyada abeed ku celi gabadhan waa isfahmi weynay guri hooyada abeed ku celi danayso magaalada dhinac ka gal ma meela gabar laga weynaa jirto ma nin meela ka weynaysa gabar aadna jirto maxaa isku dilayseen maxaa isku cadaabayseen maxaa isku baabi'inayseen ilaahay furiinkana wuu jideeyay ilaahay furiinkan wuu jideeyay guurkana wuu jideeyay labadaasba ilaahay wuu jideeyay furiinka waxa ilaahay u jideeyay hadii la isfahmi waayo meesha dhiig ka dhici lahaa in lagu kala tago oo lagu kala nabad galo hadii la isla dhaqmi karana in la isla joogo oo la isqabo fahanteen marka walaalayaalow ani waxyaalo badan isweydiiyaa anaga dawladii dhexe markay naga burburtay waa dunuubtii la galay waa culumadii la laayay
waa masaakiintii la dilay waa dadka maalka la yiraahdo waxba aan galabsan la leeynaayay waa gabdhaha la kufsanaayo waa gabdhaha la xoogaayo waa gabdhaha la dandareynayo waa gabdhaha biilka lagu dhibaayo waa gabdhaha ilmaha tii laga dhala lagu inkiraayo intaasba ilaahay waa naga soo bixinaya gabar ilmo agoona wadato oo aad guursato ka war gabar ilmo agoona aad wataad guursatay oo ilmahaas hooyii aabbo ah oo ilaahaygi abuurta aabi haduu ka qaatay oo hooyadii maanta aabi iyo hooyo badal ay isku wada itaad guursatay uur ku yeelatay ya xaamila ah oo aad gubta ka war ilmihiina aa ka dhigta aabba la'aan iyo hooyo la'aan uqubadaas ilaahay ma ka badbaadinaya mar meesha waxaas lagu sameeyay ilaahay meel wanaagsan oo ka dhigaya kama dhigaya ilaahay meel wanaagsan ha adduunka Mareykan waa isku kufsanaynaa Yurub waa isku kufsanaynaa Yurub waa isku dilaynaa habeen kasta xashiish iyo kaniini iyo qamri la caboya alkoolisto dhan aan nool hadhowna waxa lagu leeyahay cunugeega meel Allah ku dhintaa haduu qofku alkoolisto noqdo hadii la dilo xataa inaan qabrigiisa inaad tagto xataa xaq ma qofka kula dhashay haduu xataa iyo qof kale haduu alkoolisto yahay qabrigiisa xataa inaad tagto ma alkoolisto waa alkoolisto ma daahiro doofaar ilaa durdur iyo dabaal gala ma daahira li alkoolisto ma daahiro alkoolisto ma daahiro qof dhiig gala ma daahiro qof sinaysta ma daahiro waxyaalaha waxaa la rabaa reality la isku sheeganimay reality in la isku sheegaa la rabaa social media waxaan jecelahay runta in la isku sheego social media markaa joogtid runta sheeg been iyo qiyaalaha sheegin waa ina reality ku dhimataa doofaar ilaa durdur iyo dabaal gala ma ilaa doofaar ma daahiro doofaar daahira hadda sigista biyo u dhaxgalis ma daahirayo waaba cad xaaraanaba marka anagu waxaan rabnaa gabdhaha Soomaaliyeed ilmaha hadaa wadatiin ogaada ilmaha aa wadatiin ninka dhex keenaysiin iska baara haduu xashiish cabo haduu kaniin cuno haduu qamri cabo haduu sinaysto haduu tuug yahay ilmahaas walaalay ha dhex keenin ilaahay aan kugu dhaarshay walaalay ha dhex keenin walaalay macaani dhar oo wataa waa labisan sidis baa uu leeyahay macnaha xogaa business oo haysta ma shaqayso background check qofku ku sameey ilmahaas hooyo aabba u tahay nin munaafiq ha dhex keenin ilmahaas nin munaafiq ha dhex keenin walaalay naftaadana halis ha gelin naftaadana halis ha gelin dadka remove ku hay picture-ka waxaan ku leeyahay mar dambe qoraal ay soo qorin haday san waa ku block gareynaya dadkan cunka remove ku hay waa block gareynaya ii kan ala abaa ku yaala kuwa dilay la mid yihiin remove qofka soo qora ama qoraal qaldan soo qora oo negative ama Soomaaliha ku noqoto ama afqalaad ha ku noqotee blogan kugu qabanaya dib damana qolkeyga uma soo galis hadhow qolka kale markaan tago marka waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed gabar walbo garooba oo ilmo wadata ninka guursanayso ogaad gabar walbo Soomaaliyeed oo garooba ninka guursanayso ogaad xoolo ilaaha baa bixiya deeq ilaaha baa baxsha ya xoolaha ilaaha baa bixiya waliga nin ha ku guursan gabaray Mareykan oo jooga Yurub oo jooga dhaqaalo haystaa waxaad ku guursataa ninku diin ma leeyahay ninku nin akhlaaq la ma yahay ninku nin wanaagsan ma yahay nin waaridkiis ka dambeeya ma yahay hooyo iyo aabba inkaartooda qof qabana ma daahiro gabdhaha social media ku ooya nimanka social media ku ooya kurtood waaridkood inkaartooda qabaan hooyada aabbaha xoola kaama rabaan laakiin hadalka macaan ka rabaan hooyo see tahay aabba see tahay habar yar see tahay eeda see tahay abti see tahay intaas rabaan xoola anaga aan waarid siino taajir ku noqon anaga nala soo koriyay anaga nala soo dhibtooday anaga maartay adduunyada la soo gaarsiiyay